asalaamu calaykum ku soo dhowow daawada qaybta saddexaad ee sheekooyinkii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa sirdoonkii soomaaliya sheekooyinkan gaagaaban waxaa qoray master xiirane oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka sirdoonka ee soomaaliya sanadkii tii bishii juulaay 13 magacayga uu ka horeeyo f xiirane waxaan la taagnaa ilinka dadka ay ka soo baxaan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad oo caasimad u ah dalka ciraaq wiil dhallinyaro ah waan salaamay kadibna wuxuu markiiba asigoo aan istaagin gudaha baqdaad naga saaray waxaan cagta saarnay jidka loo maro magaalada tikriid waa 140 kilomitir safar ahaa daal badan ayaan dareemayay waxaase iiga darnaa inaan indhaha isgeliyo oo ay dhacdo waxa aanan la mahdin wuxuu ila sii duulaba waxaan si nabadgelyo aan ku tagnay magaalada tikriid qasri weyn oo webiga dajle saaran ayaa jeex la iga dejiyey waxaan ka qubaystay daalkii safarkii dheeraa ee aan kaga imid xamar ilaa xawaarihii u dhexeeya baqdaad iyo tikriid xoogaa yar kadib waxaa albaabka igu soo garaacay sargaal ciraaqi ah oo aan markaasi aan aqoonin wuxuu igu yidhi hogaamiyahayga ayaa ku doonaya inuu ku arko waxaan ku yidhi aan diyaargaroobo marxaba iyo guddoon ayuuna albaabkii iigu sii laabay macaawiis iyo goshaal ah kaba saandal ah iyo bakoorad ayaan gacantii ku qabsaday anigoo u muuqda gashaanqaad soomaaliyeed ayaan albaabkii furay waxaa isoo horkacay sargaalkii markaan 3 daqiiqo ku dhex soconnay qasrigii jeexa la iga dejiyey ayuu albaab furay kadibna mid kale ayuu si edab leh farta dhagdhag ugu siiyey soo dhaaf ayaa af carabi lagu yidhay markiiba intuu fadhigii ka istaagay ayuu yidhi soo dhowow walaalka carbeedow waxaad timid dalkaadii waxaa mahadlay ilaahay oo nabadgelyo kugu keenay ciraaqda weyn durba waan gartay walle waa madaxweyne saadaam maanan filaynin inaan asaga arkayo waxaa dhinaciisa fadhiyey cisaad ibraahim alduuri markaasi wuxuu ahaa ku-xigeenkii golaha sare ee kacaanka ciraaq waxa uu ahaa wadaayiga ama saaxiibka dhow ee saadaam tan iyo markii uu xukunka ciraaq uu qabtay waxaan durba dareensiiyey madaxweyne saadaam inaan diyaar u ahay inaan ammaanadii madaxweyne jaalasiyaad uu ii soo dhiibay aan ku wareejiyo waxaa malahaygaan u gartay ma keligaa ayaan kuu sheegaa mise alduuri waa uu maqli karaa wuxuu yidhi isaga oo dhoolla caddaynaya ninkan waa ku-xigeenka golaha sare waxaana ugu yeeray inuu farriinta ila meeleeyo qalinka iyo warqadaha ayuunu noo haynayaa caawa durba waxaan bilaabay inaan soo qufo waxaan qarinayay ilaa xamar waxaan u dhiibay dhowr sawir oo markiiba midkood uu gartay oo saraakiil NSS-ta ka tirsan kuwaas oo qarsoodi ahaan ay kaga soo qaadeen saraakiil reer ciraaq ah oo Qubrus kula fuudaya shaax iyo sharaab sargaal ka tirsanaa safaaradda ay Yuhuudda ay ku leeyihiin Qubrus sidoo kale waxaan waday warqad sir ahayd oo jaalasiyaad uu ka helay Dimashq taas oo qeexaysa nin shaqaale ka ahaa bangigii Batra ee ku yaala Ammaan Urdun Axmed Jalabi inuu yahay wariye cadowga Ciraaq ay ku kalsoon yihiin kana qaataan warka Ciraaq xilligaasi Dimashq iyo Baqdaad waxaa u dhaxeeya dagaal qabow wejigiisii ayaa bedelmay hadalkiina wuxuu yeeshay dhawaaq ka duwan kii farxadda ahaa isaga oo sigaar qiiqinaya ayuu yidhi salaan iga gaarsii walaalkaygii maxamed una sheeg khaa'imiintan khaliijka waxaa keliya ay heshiis ay ku yihiin sidii loo ciribtiri lahaa 4 ciidan ee ay ummadda carbeed ay ku faani karto waa xoogaga dalalka ciraaq aljeeriya soomaaliya iyo suuriya waa dabadhilifka cadowga ummadda ku dhowaad 3 saacadood oo fadhi qaatay ayuu cisaad igu soo dhoweeyey halkan deganaanna igu soo hagay hurdo aan dhowr jeer ka salalay ayaan seexday habeenkaasi waxaana ii bilaabmay 5 cisho oo aan ciraaq aan sii joogayo intaanan xamar u soo dhoofin waxaan filayaa inaad wax un aad ka ogaatay xiriirkii wanaagsanaa ee xilligaasi u dhaxeeyey dowladdii jaalle maxamed siyaad barre iyo sidoo kale ciraaq waxaa kaloo aad halkaasi ka ogaanaysaa in uu jiray xurguf la doonaya in lagu jibiyo 4 dowladood ee xilligaasi ciidan ahaan xoogaga carabta ugu weynaa oo kala ahaa ciraaq aljeeriya soomaaliya iyo suuriya ciraaq soomaaliya iyo suuriya hadda waxaad moodaa in ay yaalaan halkii lala doonayey waxaa keliya ee ka badbaaday inqilaabkaasi iyo dhibaatooyinkii kala duwanaana waxay ahayd dalka aljeeriya oo markii ugu dambeysay cabdicasiis bouteflika uu iska casilay xilkii uu u tartami lahaa isaga oo da'ah halkaa ha inoo joogta qaybta saddexaad ee sheekooyinka uu qoray master xiirane oo ahaa sargaal hore oo ka tirsanaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socoshada muuqaalada kala duwan ee aan halkan ku soo gudbiyo muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo fadlan haddii aad ku cusub tahay daawashada muuqaalkan subscribe si aad u hesho muuqaalo kale oo ku saabsan arrimaha sirdoonka sheekooyinka taxanaha ah caafimaadka qoyska iyo sidoo kale aqoon kororsiga muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo